sanad kastaba 1 December ayaa loo astaaniyay in dadweynaha dhan laga maamuso maalinta AIDS-ka. Xeryaha qaxootiga Dadaab oo ay ku nool yihiin kumanaan qaxooti ah oo ka soo kala jeeda wadamada Itoobiya, Soomaaliya, Eritrea, Suudaan, Congolese iyo qowmiyado kale ayaa waxaa maanta oo ay ku beegan tahay 1 bisha December 2016 ayaa waxaa maanta si weyn looga xusay maalinta loo asteeyay ciribtirka cudurka dilaaga ah ee HIV/AIDS-ka oo adduunka ku yahay weerar baahsan. Hay'adda xerada qaxootiga ee Dhagaxley u qaabilsan arrimaha caafimaadka ee dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn magaceedu la soo gaabiyo MSF ayaa horkacaysa hay'adaha u horseeda heerka caafimaadka ee howlgala xeryaha qaxootiga Dadaab sida Ifo, Dhagaxley, Xagadheera, Kaambicoos. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan qowmiyadaha kala duwan ee ku nool xeryaha qaxootiga Dadaab, waxaana dhammaan shacabkan isku soo bannaanbaxay xuska maalinta ciribtirka cudurka dilaaga ah ay ka wada siinayeen la dagaalanka iyo wacyigelinta ka dhanka ee cudurka. Waxaa goobta lagu soo bandhigay ciyaaro kala duwan kuwa oo ay soo bandhigayeen dhalinyarada iyo ururada ka dhisan xeryaha qaxootiga Dadaab. Let one and all arise to protect HIV/AIDS. A, B, C, but never D. Kila ukikoa watu wanaziba pua, ukikata kunywa mionzi wanakimbia, tunapa kukimbilia unatutia dunia. Ndugu tusiwatenge wagonjwa wa ukimwi. Wakarkara kanda isokawate alqalbiga maqursanayuma. Wakarkara kanda isokawate alqalbiga maqursanayuma. Ediska maxasay abkila maqudigaya. Dhanka kale mas'uuliyiinta ka socda hay'adaha dhankooda bulshada ku wargeliyay in ay ka faa'iideystaan xarumaha baaritaanka bilaashka ah ee ka furan xerooyinka Dadaab, isla markaana ay si joogto ah ugu warqabaan xaaladooda caafimaad maadaama ay hay'adaha ku sugan xeryaha ay bixiyaan adeegyo kala duwan oo bilaash ah. Munaasabada ayaa waxa ay ku soo idlaatay jawi wanaagsan, waxaana shaqsi weliba oo ka qaybgalay uu kala soo tagay wacyigelin iyo aqoon guud oo ku aadan la dagaalanka iyo ciribtirka cudurka HIV/AIDS. Mukhtaar Xasan, waa Beri TV, Dadaab, Kenya.